Horumarka Malaysia waxaan u cuskanay diinta Islaamka. Hogaamiyaasha Islaamka wax weyn ayay qaban karaan, laakiin waxaa ka maqan doonis inay diyaar u yihiin inay wax u qabtaan bulshadooda. Ku soo dhawow sheekada ra'iisul wasaarihii ka dambeeyay horumarka Malaysia. Malaysia is one of the fastest growing emerging economies in the world, having successfully capitalized on an emerging markets boom that happened shortly after the 2008 financial crisis. Now, it's looking to expand. Mahathir Mohamad waxa uu xukunka Malaysia qabtay inta u dhaxaysay 1981 ilaa 2003. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay hogaamiyaasha qaaradda Aasiya ugu saameynta badan. Inta uu xukunka hayay waxa uu ku guuleystay inuu horumar lagu tilmaami karo mucjiso u gaarsiiyey waddanka Malaysia. Wuxuuna waddankiisa ku horumariyey dhinacyo badan sida dhanka dhaqaalaha, waxbarashada iyo adeegga bulshada. Mahathir Mohamad waxa uu magaciisa soo caanbaxay markii uu qoray kitaab uu u bixiyey The Malay Dilemma oo uu ku dhaleecaynaya shacabka reer Malaayo, isagoo ku eedeeyay inay yihiin shacab raalli ka noqday in adduunka kale gacmaha ay u horsadaan iyo inay ahaadaan dad adduunka dib uga dhacay, dowladdoodana aysan la jaanqaadi karin waddamada horumaray. Ururkii markaasi ka talinayay Malaysia oo xubin uu ka ahaa Mahathir Mohamad ayaa dhaleeciyey kitaabkaasi, waxayna soo saareen amar ay ku mamnuucayaan iibsiga iyo daabacaadda buuggaasi. Laakiin Mahathir Mohamad waxa uu ku guuleystay inuu hogaamiyo ururkaasi, kana dhaadhico in buuggiisa waxa ku qoran ay tahay wax jira, loona baahan yahay in isbeddel la sameeyo, Malaysiana horumar loo horseedo. Mahathir Mohamad waxa uu suurto gashay inuu la wareego hoggaanka dalka Malaysia, wuxuuna ku talagalay inuu ficil u beddelo fikirkii uu aaminsanaa. Adduunka ayuu ka baadi doonay waddan uu ku dayan karo, waxaana u soo baxday in waddanka Jabbaan uu yahay kan tusaalaha mudan. Sababaha Jabbaan uu ku doortayna ay tahay in Jabbaan xoogga ay saareen waxbarashada iyo kobcinta qofka bini'aadamka. Waxa kaloo ku doortay Jabbaan inay soo saaraan alaab tayo fiican oo qiimaheedu jaban yahay, taasna waxay u suurto gelisay in dunida ay u dhoofiyaan alaabaha. Mahathir waxa uu udubdhaxaad uga dhigay horumarka uu la hiigsanayo waddankiisa 3 arrimood oo kala ah: udubdhaxaadka dhaqaalaha, udubdhaxaadka warshadda iyo wax soo saarka, iyo udubdhaxaadka adeegga bulshada. Dadaal fara badan kadib, Malaysia waxa ay dhabbada saartay waddadii horumarka, waxaana u suurto gashay inay ka mid noqoto waddamada adduunka ugu dhaqaalaha badan. Mahathir Mohamad marka uu arkay horumarka, waxa uu go'aansaday inuu xilka baneeyo si uu fursad u siiyo jiilka cusub oo xambaarsan fikrado cusub oo lagu horumarin karo waddanka Malaysia. Waxa uu xukunka ku wareejiyey jiil dhammaystiray xeerarkii uu u dejiyey Malaysia oo ah 20-20, oo macnaheedu tahay in sanadba Malaysia heer ay joogto ilaa ay noqoto marka la marayo 2020 dowladda afraad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan, uguna horumarka degdega badan. Mahathir Mohamad waxa uu ku guuleystay billado badan, wuxuuna noqday hogaamiye tusaale mudan. Waxa uu qoray buugaag gaaraya 16 buug, waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii afraad iyo kii 7aad ee Malaysia. Bulshada reer Malaysia waxay ugu yeeraan aabbaha horumarka Malaysia. Waxaan ku soo gnaanadayaa muuqaalkan mid ka mid ah xigmadihii laga diiwaan geliyey Mahathir Mohamad. Qur'aanka waxa uu ku baaqayaa in la dhiso bulsho Islaami ah, ee kuma baaqaya in la dhiso dowlad Islaami ah. Kuma jirta Qur'aanka ayaa tibaaxaysa qofka ku guuldareysa nolosha inuu ku guuleysanayo midda aakhiro.